caqabadaha nolosha waxaa ka mid ah hadallada iyo waxyaabaha ay naga aaminsan yihiin dadka nagu hareeraysan, annagoo mar walba u fiirina tallaabooyinka aan qaadayno oo aan ku horumarinayno nolosheenna in ay ka raalli noqdaan dadka oo dhan. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا. assalaamu calaykum, magacaygu waa qaasim maxamed. ku soo dhowow muuqaal cusub. ma isku aragtay waxyaabo badan oo ay u baahan tahay naftaada inay samayso, balse aad isaga dhaaftay dadka maxay ku dhihi doonaan? mala kulantay dadkaa shaki geliya mar walba tallaabooyinka aad doonayso inaad qaaddo oo aad ku horumariso noloshaada, balse aad isaga dhaaftay dadka dartooda? ma isku aragtay dareenka ah mar walba oo aad ku fikirto tallaabo cusub inaad qaaddo iyo isbeddel cusub inaad ku samayso naftaada, balse aad sawirato dadka kugu hareeraysan waxa ay ku dhihi doonaan, kadibna aad isaga dhaaftay tallaabadii aad rabtay inaad qaaddo iyaga dartooda? sidoo kale ma kugu dhacday adigoo naftaada ka dhaadhiciyey inay u tallaabo qaaddo dhanka ay rabto inay ka gaarto horumar ama waxa ay ka doonayso nolosha inay hantiso, balse aad la wadaagtay dad aad islahayd way ku dhiirigelin doonaan, laakiin aad kala kulantay inay beddelaan fikirkaagii kaana dhaadhiciyaan inay dadku kula yaabi doonaan haddii aad samayso sidaas, ilaa aad ka gaartay xilli aad ka tanaasushay wixii aad rabtay. ha la yaabin, waxyaabahan oo dhan waa qayb ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qof kasta oo isbeddel doon ah, kuna hanweyn inuu casriyeeyo naftiisa iyo qaab nololeedkiisa. balse caqabadahan waxaa ka gudba oo keliya qofka dantiisa ka raacda. ma og tahay dadku inay hadlayaan mar walba oo aad wax samayso, haddii ay ahaan lahayd wax wanaagsan ama wax aan wanaagsanayn? ma og tahay marna inaysan dhacayn dadka oo dhan inay ka raali noqdaan adiga ficiladaada? sidaasi darteed ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugu iftiimiyo marna inaysan dhacayn oo ay suurtagal ahayn dadkoo dhan inay ka raali noqdaan ficilkaaga iyo tallaabooyinka aad ku horumarinayso naftaada. waxaan ku leeyahay dantaada ka raaco. marna xabsi ha ugu jirin hadallada daciifka ah ee niyadjabka leh ay kugu dhahayaan ama ay kugu dhihi doonaan dadka kugu hareeraysan ee kula ah walaal, asxaab, qaraabo ama deris. ka raaco dantaada. tallaabo kastoo aad qaadayso marna ha u fiirin dadka sida ay u arki doonaan, balse waxaad u fiirisaa aniga ahaan ma ku qanacsanahay oo naftayda dan ma ugu jirtaa? dabcan haa, hadday kuu soo baxdo oo aad og tahay in naftaadu ay ku qanacsan tahay ayna ku horumarayso tallaabooyinkan aad qaadi doonto, dadka waxba kaama gelin ee dantaada ka raaco. kuna hay maskaxdaada dadku marnaba inaysan ka raali noqonayn oo ay ka falcelin doonaan tallaabo kastoo aad qaaddo. taasna waxaa caddeyn u ah sheekadanna tusaysa in wax kasta oo aan samayno ay ka falcelin doonaan dadka nagu hareeraysan ama dadka aan la kulanno. wiil iyo aabbihiis ayaa waxay isku raaceen suuq, waxayna sii wateen faras, balse ma aysan fuulin labadooduba oo waxay ka kala socdeen labada dhinac ee faraska. kadib waxaa arkay dad, waxayna ku dhaheen wiilkii iyo aabbihiis, allah, labadan doqonsana may fuulaan faraska inta ay lugayn lahaayeen. odaygii ayaa wiilkiisii ku yidhi, wiilkaygiyow, soo uma jeedi dadka marnaba kama caajisayaan in ay ka falceliyaan wax kastoo aan samaynayno, ee u fiirso waxa ay dhihi doonaan haddana. aniga ayaa fuulaya faraska ee ila soco adiga. kadib aabbihii ayaa fuulay faraskii, haddana waxaa ka hor yimid dad, waxayna ku dhaheen, alla, odaygu xaasisanaa, isaga ayaa fuushan faraska, wiilkiisana wuu lugaynayaa. kadib aabbihii ayaa ka soo degay faraskii, wuxuuna saaray wiilkiisii. markay socdeen in cabbaar ah ayaa haddana waxaa ka hor yimid dad oo waxay ku yidhaahdeen, alla, wiilku caasisana oo aabbihiis oo lugaynayo ayuu isaga fuushan yahay faraska. markii dambe faraskii ayaa waxaa wada fuulay aabbihii iyo wiilkiisa,
sidoo kale in cabbaara markay socdeen waxaa ka hor yimid dad oo ku yidhi alla labadan qof fiiriya, faraska kama naxayaan oo way cadaabayaan, may ka degaan xayawaankan maskiinka ah, uma dulqaadan karee culayskooda. kadib aabbihii ayaa wiilkiisii ku yidhi, wiilkeygiyow xusuusnow, marna dadka hadalladooda kama fakanaysid ee dantaada ka raaco. soo uma jeedid sheekadan tusaalaha wanaagsan ah? dantaada inaad ka raacataa ayaa mar walba ka wanaagsan dadka hadalladooda, maadaama adigu aad tahay qof xur ah oo samaysan kara wax walba uu u arka naftiisa inay u wanaagsan yihiin. dadka u daaha u hadlaan sida ay doonaan, keliya adiga noqo qof aan kala jeclayn hadalladooda kana raacda dantiisa. ugu dambayn, marna yaysan ku joojinin cabsida aad ka qabto dadka hadalladooda. haddii aad ku dhiirato inaad isbeddel wanaagsan ku samayso naftaada, una tallaabo qaado dhanka ay kaa xigaan riyooyinkaaga iyo wax walba aad ku haminayso inaad hantiso nolosha, u oggolow naftaada inay iska dhaga tirto hadallada niyad jabka leh ee daciifka ah ee kaga imaanaya dadka ku hareeraysan. oo xusuusnow, ma jirto qof adiga kaaga aqoon badan naftaada. mar haddii adigu nafsadaada aad u qirta inay tahay nafsad awood u leh inay xaqiijiso riyo kasta oo ay ka leedahay nolosha, waa hubaal inaad ka guulaysan doonto wax kasta oo kaa hor yimaada oo ay ugu horeeyaan dadka hadalladooda. haddii aad dhegaysato naftaada kuna dhiirato inaad tallaabo qaadi karto, una tallaabo qaadi karto dhan walba oo aad ka jeceshahay nolosha inaad ka samayso horumar. adigu waajib kuguma ahan raaligelinta qof kasta, balse waxaa waajib kugu ah inaad qof kasta ula dhaqanto sida adiguba aad jeclaan lahayd in loola dhaqmo naftaada, haddii ay ahaan lahayn xitaa cadowgaaga iyo kuwa ka xun adiga horumarkaaga. taasina waa wanaagga naftaada ee ma ahan abaalmarinta xumaantooda. waxaan rajaynayaa inaad ka heshay muuqaalkan, aadna ku dabaqi doonto noloshaada si aad aga xurayso naftaada ka cabsi qabka dadka hadalladooda. inta aan goordhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay naftaada rabitaankeeda iyo hiigsigeeda cidna aqoonsi ugama baahna, oo waxaa tahay qof xor ah oo aan cidna u xabisnayn. dadkuna keliya sii ixtiraamka ay kugu leeyihiin, danahaagana ka raaco. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.